بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan fadhiyaa oo kuna sanayaa qaybta sare ee magaalada Marburg ee la yiraahdo Uba Ishtaadka. Magaalada Marburg waxa ku taalo taalooyin aad u fara badan. Midaana waa mid ka mid ah taalooyinkii lagu maamusay ee loo dhisay dad aan waxba galabsanin ee lagu laayay inta u dhaxaysay 1597 ilaa 1695 dadkaasi oo lagu gubay qaybta sare ee buurta iga sareysa halka ayaa lagu gubay dadkan inta waxa lagu laayay ama loo laayay sababta ka dambeysay waxay ahayd sidaan ognahay diimaha kala duwan hadii ahaan la diinta islaamka iyo diimaha kaleba dadka saaxiriinta aad loola dagaalamaa marka dadka waxay ahaayeen dad saaxiriin ah oo dumar iyo rag iskugu jiro kuwaas oo lagu laayay inta u dhaxaysay sanadihii aan soo sheegay marka dadkan waxa lagu xugmiyay qaybtan iga hooseysa waxa ku yaashay ayadan ama ku taala gurigii umada waxaana ku agdhaganeed waagaas maxkamadaas ayaa xukmisay in la laayo dadkan saaxiriinta ahaa kadibna eco nolosh lagu gubay waxaana lagu gubay buurta iga dambeysa ayaa lagu gubay reer Yurub markii dambe waxay ogaadeen falalkii aad ku xumaa ee lagu laayay dadkaas kadibna waxay garowsadeen inay dadkaas aysan cadaalad la rabay aysan helin marka hadda soo noqono dalkeena Soomaaliya iska daa dad saaxiriin ah oo xuquuqdoodii iyo dadkoodii loo dooday dadkii birmageydada ahaa iyo dadkii macallimiinta ahaa iyo dadkii dalka wax tarka u lahaa ayaa maalin walba si macaan darro lagu laayaa iyadoo inta loo sameeyay ama wax loo qabto iska daayay ee xataa kan ugu roon ee mansab siyaasadeed ama madaxnimo sheegta kaliya inuu meelaha inta ka soo hadlo oo yiraahdo waan dacayadeynaya ama waan dacayadeeyay inta ay afka nagu soo arurtay marka waxaan rajeynayaa dadkeena inay cadaalad helaan insha Allah taala hadii kale waxaan la mid noqonaa umadaha fashilmay ee dalalka kale ka haray waxaan rajeynayaa sida dadyogan ay cadaaladda ugu dadaalaan in anagana dalkeena ugu dambeys u helo cadaalad iyo sinaan waad mahadsantihiin